waxa uu ahaa weerar sababay dhimashada rayid ah dhaawac iyo burbur hantiyadeed kadib markii xooga ka tirsan al-shabaab ay qaraxyo la beegsadeen goobo dadku ay ku badnaayeen oo ku yaala wadada Maka al-Mukarrama iyo jidka 22 Oktoobar ee magaalada caasimadda ah Muqdisho. qaraxyada iyo weerarka tooska ururka al-shabaab ay ka geysteen Muqdisho ayaa walaac ku abuuray shacabka Soomaaliyeed kuwa oo sababay dhimasho iyo dhaawac aan weli la shaacin. weerarka tooska ee al-shabaab ayaa weli ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo shabaabku ay ku jiraan mid ka mid ah guryaha kaabiga ku haya hoteelada Maka al-Mukarrama iyo Hotel Hillah oo labaduba ah goobta uu ka dhacay weerarka. ciidanka gaashaan oo ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sida wararku ay sheegayaan gaaray guriga ay ku jiraan shabaabku si guud ahaan loo soo afjaro weerarka qaatay saacadaha badan. dawladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarka al-shabaab ay ku gumaadeen shacabka Soomaaliyeed. walow ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya uu marar badan ka dhawaajiyay in la isku xisaabtamayo qaraxyada ka dhaca Muqdisho. degmo hebel haddii amni darra ay ka dhacdo waa in qof hebel loo soo xiri karo. maxaa waxaanoo janadaalaha u joogaan haddii qaraxay dhacayaan? maxaanu leenahay intaasoo guddoomiye degmo haddaan la ogeyn waxa dhacaya? laakiin waxaan la aqbali karin in mar walba magaaladan qarax uu ka dhaco. waa in la isla xisaabtamaa. meel walba ciidan baa taagan. cidi waa inay mas'uuliyad qaadaa markii dhib dhaco. waa in cid lala xisaabtamaa. laga bilaabo maantay waxaan idinka codsanayaa in amniga magaaladan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto. wixii aad nooga baahantaana aadna soo weydiisataan. shacabka Soomaaliyeed oo mar waliba ah dhibanayaal aan dhibkooda la ogeynaya waxa ay ka sugayaan xukuumadda Xasan Cali Khayre cid ay kula xisaabtami doonto weeraradii saaka ilaa xalay ka socday magaalada Muqdisho.